inkastoo axsaab tiradoodu ay ka badnayd 60 ay ka qayb qaateen doorashooyinkaasi. hase yeeshee mudanayaashii baarlamaanka ee ku guulaystay doorashooyinkaasi ee ka tirsanaa axsaabtii mucaaradku ah dhammaantood waxa markii dambe ay isku shubeen amaba ay ku biireen xisbigii talada haya ee SYL marka laga reebo Cabdirasaaq Xaaj Xuseen. waxaa taasu markaasi ay u muuqatay in jamhuuriyaddii Soomaalidu markii ugu horeysay ay yeelatay xisbi kaliya. hase yeeshee dowladdaasi muddo dheer ma jirin. madaxweynihii dowladdaasi allaha u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa bishii Oktoobar 15 sanadkii 1969 lagu dilay magaalada Laascaanood isagoo markaasi booqanayay gobollo waqooyiga ku yaal oo abaari ay ka taagnayd. madaxweynaha waxaa dilay nin ka mid ahaa askartii booliiska ee ilaalinaysay. ra'iisul wasaarihii dalka Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal markii madaxweynaha la dilay waddanka dabadda ayuu kaga maqnaa. waxa uu joogay dalka Mareykanka oo uu kaga qayb galayay kulankii golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkaasi. kulankaasi Mr. Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxa uu ka hadlay bishii Oktoobar 7 sanadkii 1969 oo 2 toddobaad ay ka horeysay waqtigii talada dalka ciidamadu ay la wareegeen. hadalkii maalintaasi Mr. Cigaal uu ka jeediyay qaramada midoobay waxa ka mid ahaa waxyaabihii uu u doodayay xuquuqda Falastiiniyiinta iyo in dalweynaha Shiinaha loo ogolaado qaramada midoobay. waddankaas oo sida aad imika ka warqabtaan ka mid ah wadamada awoodda fiitooda ah ee diidmada qayaxan la yiraahdo kulle qaramada midoobay oo xubinna ka golaha ammaanka. bal qadar aan idinka maqashiina hadalkiisii oo af Ingiriisiya. We cannot ask a state to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight if the principle... waxa uu yidhi Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal suurtagal ma aha in dal aynu ka doonno inuu xishmeeyo awoodda qaramada midoobay iyadoo dalkaasi aynu iska hortaagnay inuu qayb ka ahaado qaabka aynu go'aamada ku gaadhno. waxa taasi soo raacda buu yidhi inaan la filan in awoodda jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ay miisaan yeelato haddii mabda'a in adduunyadu ay wax wadaagto indhaha laga qarsado. waxa igu filan buu yidhi inaan idhaahdo in aniga iyo waftigayguba aanu taageeri doonno sidii aanu horeba had iyo jeer u yeeli jiray wixii go'aana ee u suuro gelinaya jamhuuriyadda dadka ee Shiinuhu in kaalinta xaqa ay ugu leeyihiin ay ka galaan qaramada midoobay haddii ay ahaan lahayd golahan loo dhan yahay ka ammaanka iyo hay'adaha kaleba. haddaba Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal markii lagu wargeliyay in madaxweynihii dalka la dilay ayuu si degdeg ah ugu soo laabtay dalka si ugu howlgalo sidii madaxweyne cusub loo dooran lahaa oo bedela allaha u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo intii taageersanaydba waxay u ololeeyeen in jagada madaxweynimada loo doorto allaha u naxariistay Xaaji Muuse Boqor. arrintaasi markii ololaheedu muddo uu socday waxa kulankii ugu dambeeyay la isku afkartay in Xaaji Muuse Boqor loo sharxo jagada madaxweynenimada habeennimadii Oktoobar marka ahayd 20 hase yeeshee laguma simin in taladaasu ay meel habeennimadii 21 Oktoobar sanadkii 1969 ayaa ciidamadu ay la wareegeen taladii dalka Soomaaliya. askarta haddaba talada la wareegtay ee golihii sare ee kacaanka waxa ka mid ahaa Cismaan Jeelle. Cismaan waxa uu imika joogaa waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya. aadan nuux duule ayaa waxa uu weydiiyey waxa barigaasi ku kalifay in dawladdii rayidka ahayd ee Soomaaliya ee la soo doortay ay afgambiyaan iyo muddada ay wadeen bal haddaynay tallaabadaasi qaadaan. buuxu waa iska jiray ilaa intii uu dadweynuhu bilaabay inuu ka cawdo dhaqan siyaasadeedkii hogaamadii rayidka ahaa ku kala dambeeyay maamulka dalka ilaa iyo markii la qaatay xorriyadda iyagoo arkaya dadweynuhu inay wada daba mareen ujeedooyinkii gobonimada loo dhaliyay. marka iyadoo arrintu sidaa ahayd ayaa haddana kalsooni darradii waxa ay sii fogaatay kadib markii dalka uu ka dhacay bishii Maars 1969 doorasho sidii loo maamulay ay reebtay urkutaalo weyn oo ummadda ku qancisay inay jirin haba yaraatee wax rajo ah oo laga sugi karayo maamulada. haddaba ciidamadu ayagoo qayb ka ahaa shacbiga lana wadaagay walaacaas guud waxay ahaayeen
socdaan indhaha ku haya dareenkoodani waxa ku sii weynaaday inuu dalku halis ku jiro oo u baahan yahay in laga badbaadiyo arrintu halkaas markii ay maraysay ayaa waxaa la dilay madaxweynihii dalka ee waqtigaas doctor cabdirashiid cali sharmaarke ayadoo loo aaneeyey dilkiisaas arrimo la xiriiray sidii loo maamulay doorashadii dalka ka dhacday sanadkaas isaga ah marka sidaan wada xusuusano durbadiiba xubnihii baarlamaanka ugu jiray xisbiga leegada oo isagu xukunka hayay iyo golihiisii dhexe ayaa ku shireen xarunta xisbiga ee muqdisho si la isula meel dhigo ciddii bedeli lahayd madaxweynahaas la dilay arrintaa ayada ah oo is-afgaran waa uu ka dhacay dagaal afeed xoog lehna uu dhex maray raggii taasina waxay soo dedejisay dhashada kacaanka si loo badbaadiyo qorannimada iyo dawladnimada iyo iyaga udhoodana si loo kala hagoogto wakhtigaa ay baarlamaanku shirayeen ee laga hadlayay sidii dawlad loo dhisi lahaa idinku hindisihiinu miyuu ka horreeyey mise uu ka dambeeyey maya uu ka horreeyo qorshe ka horreeya waa jiraa de maxaa weeye niyad xumada dadweynuhu mauna bilaaban waktigaa ay shirayeen iyagu ee wuxuu bilowday doorashadii ayuu la bilowday oo doorashada ka hor ayaa waxaa jirtay saluug fara badan oo loo qabay maamulada marka fikraddu way taagneed laakiin waxyaabahan dambe way soo dedejiyeen intee in leeg baa markaa idinku muddada awoodeen hawsha ama marka taladii ugu horreysay ay isugu timaadeen inaad talada la wareegtaan intee in leeg bay ka horreysay xilliga doorashada waxaan oran karayaa ilaa 6 bilood meelaha qiyaasta waa tacisban waxaad ka warrantaa haddaba markaa isugu timaadeen kulankiinii ugu horreeyey saraakiishiinii ciidamadu maxay waxyaabihii ugu horreeyay markaa aad ku taliseen matalan ay istidhaahdeen tallaabooyinka caynkaasa qaada sida la ogyahay haddii nidaam cusub uu yimaad ama nidaam militariga oo la wareego xukun markaa jiray oo dastuur ku dhisnaa de waajibka ugu horreeya waxa weeye horta bal dastuurka in la joojiyo maxaa yeele dastuurku lama saan qaadi karayo kacaan iyo military meel qabsaday marka durbada horta waxaan laalnay dastuurkii ayaanu joojinay ku dhaqankiisa waxa kale oo aan ku dadaalnay bal inaan mataqaanaa aan maamulkii una hakanin oo sidii ay u socdaan hay-adihii dawladdu waxaan u yeeranay nimankii agaasimeyaalka guud ahaa ama maareehayaalka ama shirkadaha madaxda u ahaa waxaanan siinay mandate ama awood ay ku sii maamulaan mar haddii wasiir korka maamulaya una jiran intii wasaarad laga dhisayo marka nabadgelinta kacaanka iyo dhidibow aasidda nidaamkaa cusub oo dhashay ayaa wixii aan ku dhaqaaqnay ugu horreeyey waxaad ka warrantaa cismaan maadaama aad sidaad ii sheegtay aad dastuurkii laasheen baarlamaankiina aad kala dirteen doorashadii ka horreysana aad dhaliilayseen oo lahayd sida u dhacday ma wanaagsanayn idinka lafahantiina waktigii aad talada la wareegayseen ma idiin muuqatay doorashadii ceebahay doontaba ha lahaatee haddana dadku inay xor u haayeen iyagu cidday doonayaan inay doortaan laakiin idinku aad taa ka qaadeen markaa ma idiin muuqatay nooma muuqan maxaa yeele hadday noo muuqato dee mala samayneenba afgembiga waxaa noo muuqatay annagu dee xoog baan ku wala wareegnay meeshii laakiin dee in nidaamyadii markaa jiray dadka soo dhici jireen maanay ahayn mataqaanaa waxa la yidhaha qofku xorriyadiisa qofka uu kusoo dooranayay magac ahaan way ahayd waxa weeye waxyaabahan la yidhaha waad ogsan tahay adduunka waad la socotaa waxaan hadda ay yidhaahdeen demoqrasiyada waxay ku timaad tartan xalaal ah oo caddaan ah oo la yaqaan oo qofku wuxuu sheegaya iyo meeshuu ka yimid iyo xataa meeshii uu cambaynka uu gelayay ama tartanka dicaayadii uu samaynaya lacagtii meeshuu ka keenay marka waxa weeye adduunka ama waa in wixii sidii dadkii samaystay oo reer galbeedku ay u samaysteen loogu dhaqmaa ama de waa inaan laga been sheegin marka annagu been ma aanaan sheegin waanan u bareerinay inaan dadka usoo dhicino ayaana annaga kolley ujeedadeenu ay ahayd laakiin dee iyagu mataqaanaa awooddii iyo dhaqaalihii dawladda ayaa lagu geli jiray anigu nin ahaan waxaan xoogga dalka soomaaliyeed wakiil uga ahaa xafiiskii hogaaminta doorashadii 69
say wax u dhacayeen iyo ciidamadana la weydiinaya meesha loo diray iyo cabashooyinka soo dhacaya intoo idil badan akrinayo goobjoog niman u ahaa taa waxaa dheer dadka nafsadooda way caba jireen maansooyinkooda laga garanaya heesahooda laga garanaya gabayadii baa laga garanaya waxa taas gabagabadii wada caddaynayo markii anagu aan caddaynayn ciidamadu la wareegeen meesha ummadda soomaali meel kasoo joogtay hambalyay noo soo wada dirtay waa soo banbaxeen waxay naga hor yimid oo maxaad u samayseen ilaa baga mooye maanadii haddaba loo soo dhoweeyey afgembigii ciidamada wuxuu ahaa mid xoog leh sida heesaha gabayada iyo shucuurta dadweynuhuba ay muujisay hase yeeshee dowladihii ka horreeyay ee rayidkahaa raggii iyagu hogaaminayay sidee ayay u arkeen soo dhoweyntaasi ciidamada dadweynuhu ay soo dhoweeyeen cabdirasaaq xaaji xuseen oo ra-iisul wasaare ka ahaan jiray jamhuuriyaddii soomaalida ayaanu arrintaasi wax ka weydiinay bal sida uu arko soo dhoweynta xoogga leh ee la siiyey ciidamada wakhtigaasi waxaanu yidhi waxay u soo dhoweeyeen muxuu ahaa mid horta meel kasta oo inqilaab ka dhaco waxaad arkaysaa wixii cusub baa dadka u sacbinayaan waxaana ku wacan waxaa weeye waxa cusub baa intii awal wixii horoo jiray aan wax ku haysanin oo ayagu ay yihiin aqlabiyadii waxay rajaynayaan nidaamka cusub baa yaa wixii hore wax ka fiican idiin keenaya oo iyagu weeye riyadaasi iyagu isu sheegayaan marka Soomaaliya kuwaas oo kale ka mid ahayd muxuu ahaa markii military qabsaday oo khudbad la akhriyay oo la yiri xukunkii hore oo idin laqay tuugada ahaa wax walba dhameeyay annaga ka fiican wax ka horeeyo military hadda ka horeeyo wara walbaanu idin ogeeyna ma jirinin waxa hore kale ay ballan qaadeen kanaanu sameynayna kaasaan sameynayna cadaalad keenayna sidii ana wal cadaalad jirin barwaaqaanu meel walba ka dhigayna iyo cagaar dadweynihii way u sacbinayeen marka la yaab ma lahayn maxaa jira meel kasta oo kale Asia iyo Africa iyo Middle East iyo meel alla meeshii inqilaab ka dhacay oo dhan haddaad la socotay saasa ka dhacaysay marka there is nothing muxuu ahaa oo la filan waayo dadweynuhu inay u sacbiyaan wixii isbedelay ma ay jirin sidii uu haddaba sheegay Cismaan Maxamed Jeelle markii ciidamadu ay la wareegeen taladii dalka waxay u yeedheen rag tiradoodu ay ahayd ilaa kontomeeye oo ahaa mutacallimiintii markaasi la tuhmayay ama jagooyinka sare ka hayay xagga maamulka raggaasi waxaa ka mid ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo waqtigaasi ahaa agaasimaha guud ee wasaaraddii qorshaynta markii kacaanku uu qabsadayna waxa uu noqday wasiirkii ugu horreeyay qorshaynta ee dalka Soomaaliya imikana waxa weeye wasiirka qorshaynta ee dalka la magac baxay Jamhuuriyadda Somaliland haddaba aadan nuux ayaa Siilaanyo oo imika jooga magaalada London waxa uu weydiiyey u yeedhidii ciidamada qabsaday talada dalku ay u yeedheen isaga iyo raggii kaleba runtii waxa weeye markii ay ciidamadu meesha qabsadeen waxa marka hore waxay isla galeen xeradii la oran jiray Afsiyoon oo ka mid ah xerooyinka ciidamada iyana may kala soocnayn markaa way isku wada dhex jireen ciidamada military saraakiil badan oo ka mid ah iyo kuwa police-ka intuba way ku jireen anagu markaa ciidamada qabsadeen mooyaane maan ogeyn exactly cidda qabsatay dadka qabsaday kuwa ay yihiin isla markaa waxaa la soo urshay dad badan oo rayid ah oo mutacallimiin iyo waxgarad loo arkayay siyaasadana aan toos ugu jirin oo la isugu keen qolka shirarka taliska booliiska ragga inta ay qolada ciidamadu shirarka aan kala go'a lahayn ay u fadhiyeen oo marka dambe aan ogaanayno inay iskala hufayeen oo weli aan raggii noqonayay xubnaha golaha sare kacaanka markii dambe la bixi doona aan weli ayna iska xulinay intaa ka badnaayeen annagana ragga aan sheegayaan ka mid ka ahaa la yidhi ka soo baltaliya siday idinla tahay in dalka loo maamulo waxaan ka xusuusanahay talooyinkaygii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa in raggan ciidamada qabsaday wax kastaba ha ahaadeene ayan maamulka dawladda iyagu ayan qaban oo askaraha ayan qaban ay ku ekaadaan inay guddi samaystaan dusha ka ilaaliya maamul dawladeed oo rayid ah oo markii doono la bedeli karo ama cid laga bedeli karo iyaguna ayan hawsha toos faraha ula gelin kaasi qodob aada muhiima buu ahaa qodobka kale wuxuu ahaa in labada hay-adood midna ay toos maamulka dawladda tahay midna golaha sare ee ciidamada ka kooban uu yahay inaan marnaba inaan qof wada xukumin ee ay laba hay-adood oo kala madax bannaan oo mid walba shaqadeeda ay tahay
talooyinkeygii bay ka mid ahayd runtii markii ugu horreysay beryaha ugu horreysay weliba intaan la faaniyo ah intii bilowgii qodob way ka qaateen oo may soo gelin dawladdii ugu horreeyey la sameeyey may soo gelin ciidamadii meesha qabsaday waxa ahaa difaaca ayuunbaa ka ahaa muxuu ahay ciidamada inta kale civil bay ahayd waana beryihii aada moreysay in wax dhaqdhaqaaq badan iyo hawlo badan ay socdeen qodobkasi aan la qaadan oo markii dambe dee waxaan dunida isku dhabqiyey ee kharibay uu ahaa oo aan taladii raggu berigaa soo jeeshay aan la yeelintii ahayd inaan qofu madaxooda noqon maxamed siyaad baa labadiiba madax u noqday markuu muddo ka bacdi joogayna maxaa laga kala shirayaa bal labadiiba dhexdaa la isu dhigay marka way marka arrintu runtii ay dabaqday laakiin taa aada iyo aad baan u xusuustaa ciidamadii haddaba talada qabsaday oo aan intii hore la garanaynin kuwa ay yihiin waxa ay kala miirmeen 1dii bishii November sanadkii 1969 oo la soo saaray xubnihii golihii sare ee kacaanka oo tiradoodu ahayd 25 xubnood su-aasha haddaba la isweydiin karaa waxa ay tahay dhegaystayaal ciidamada talada qabsaday ma ku tala jireen in talada rayidka ay ku soo celiyaan cabdilaahi xaaji ayaa maxamed siyaad barre 1972 waxa uu weydiiyey goorta ciidamada xoryahooda ay ku laabanayaan waxa uu ku jawaabay wallahi jeel hadalkaas waa balbalaaran wuxuu u balbalaaran sad hadii adigu u fakarayso ama hadda meesha ka timid looga fakaro iyo sida halka aan uga fakarayno waxa suurtooda inay kala duwan yihiin marka haddaan ku jawaabo saan halka uga fakarayno baan kugu jawaabaya waxaanu leenahay xukunku waa inuu ku jiraa shaqaalaha iyo beeraleyda iyo dadka shicbi weynaha iyo askarta inay dad isku dada yihiin laba midab ayaan kala lahayn bay annaga nalabta hase yeeshee meesha Soomaalidu amay waajib ay u tahay inay ka fiirsataa amaan annaguba hadda aan qabno in laga fiirsada inay tahay war ninka aynu hawsha u dhiibanay manin ikhlaasaha oo si fiican noogu shaqeynayo caadilnimo noogu shaqeynaya dhibkanagu is dhibkiisa yahay dantanada annagu ogay nooga shaqeynaya sawaanin khatalaya oo xoolaha naga xadahaya oo beer nagu dul samaysanaya oo daar nagu dul dhisanaya oo qaraabo kiil samaynayo dad xigaala meel ka buuxsanaya sawaanin daacadaho xuquuqda jecel iyo hor u kaca ummadda kulligeedo idil annaga halkaas bay saas bay nooga muuqataa marka xukumkii anagu waxaan isleenahay hadda yaa haya yani matal xukum askariya baatiri anigu ma yahay anigu waagi hore askari ahaan jirta hadaan laygu tilmaamaynin intiisi kale yaa haya soo dadka dhalinyarada mutacalimiinta oo raacida oo dalka joogay soo ma hayaanin haddaba se waxaan leeyahay mid aad u jeedo waa garanaya election goormaad samaynaysaan ayaad ileedahay taas aad u socotaan xaggina saas baa looga fakaraya waxaanu samayn doonaa markii dadku uu haddaba heer fiican buu ismarahayaaye ay maskaxdiisu ay sida aan u sheegayay ay u noqoto mid Soomaali ikhlaasa marka talada ay goosanayaan iyo ninkay xulanayaan labadaba ay yaqaaniin mid wax ugu yaala oo iyaga maslaxadooda hogaaminaya inuu yahay mid maslaxadooda ka horjeeda inuusan noqonin golihii sare ee kacaanku markii talada waddanka ay qabsadeen waxa si firfircoon ay u bilaabeen wax ka qabadkii xagga horumarinta dhaqaalaha iyo adeegga bulshada waxay ku bilaabeen hase yeeshee talooyinkii xagga degmooyinka iyo gobolada inay kala wareegaan saraakiishii haysay oo ay ku wareejiyaan saraakiil da'doodu yar tahay oo ciidamada ka tirsan bishii Oktoobar sanadkii 1970 ayaa golihii sare ee kacaanku ku dhawaaqay in dalku uu qaatay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan waxa waliba taa lagu lamaanayay iyadoo si xoog leh loo cambaareeyay qabyaaladii dawladdii militariga ahayd markii ay qaadatay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan si ay u muujiso inay ka soo horjeedo qabyaalada waxay ku dhaqaaqday in iyadu mas'uul ay ka noqoto kharashka ku baxaya dadka ku dhinta magaalooyinka ee markaasi magaalada aanay u joogin cid asta waxa iyadana la dhiirigeliyay in aan mag la kala qaadanin iyadoo oo la soo saaray sharci markaasi qofkii qof dila loo dilayo xilligaasi waxa la gubay wax loo ekeysiyay amaba laga dhigay inay yihiin qabyaaladii musuqmaasuqii iyo eexashadii oo la aasay markii dambe ereyga inaadeerna waxa lagu bedelay jaalle haddaba dhegaystayaal cismaan maxamed jeelle oo ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka kana mid ahaa raggii ugu dhalinta yaraa wakhtigaasi ayaa waxaanu weydiinay markii la qaatay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan wixii ku kalifay isaad ogsan tahay horta rag hadduu meel isugu yimaad oo xukun wadaag yahay oo xukunku u dhexeeyo dee qasab ma horta dhammaan in la wada aaminsan yahay fikrad kastoo la keeno de kulley ma aha 100% in la wada aaminsan yahay waxaa dhici karta daan markay qaban inay jireen
waxnu kalifay anigu nin ahaan runtii ma arkaynin horanu ma arkaynin haddana mataqaanaa ku oran maayo waa jireen laakiin kulley sidaa ayaa mataqaanaa loo batay sidaa ayaanu ku yimid kulley sidaa ayaanu ku qaadanay waxaa jira adduunka laba system waktigaa waad ogsan tahay waxaan la yidhaha systemkan capitalismka ah iyo socialism socialismka dalal badan baa qaatay oo carabta inteeda badan way qaadan jireen intaan boqorada ka ahayn laakiin annagu midaan ku gefno waxay ahayd weliba waan sii korino waxaan idhi hantiwadaaga cilmiga ku dhisan taasoo aanan ahayn mid mataqaan munaasab ahayd xataa kuwii mataqaanaa mucalimiinta u ahaa oo ruushkii anigu hadde xiriir ma lahayn oo dadka afrikaan ma aanan ahayn laakiin kulley qaar naga mida ayay aada mataqaanaa adigu isu yaqiineen waxa ay noo sheegeen inay kala taliyeen kacaanka oo ay yidhaahdeen haqaadanaha waktigiisi ma joogtiin dadkiinuna ma noqon karayo dhaqaalihiinuna uma habaysno marka adigu dooda way iska jireen de haddii sidaa ay leeyihin kuwii macalimiinta ahaa maxaad inoogu wadaan anaga wax nagu kalifaya ma jiraan iyo adiguna hala qaato iyo go-aankuna kadib wuxuu ku dhamaaday in la qaato marka aniga hadaad hayaani weydiiso wax nagu kalifaya inay jireen ma qabo ma ruushkaa lafahantiisu idin laha ha qaadanina sida aad sheegtay saaxiibadaa siday sheegeen waddankiinu diyaar uma he sidaasaa laygu yidhi waa allah unaxariista maxamed siyaad nafsadiisa ayaan dhowr jeer ka maqlay cismaan maxamed jeelle waxa aanu weydiinay oo kale dadkii soomaaliyeed ee ay ugu dhawaaqeen golihii sare ee kacaanku qaadashada hanti wadaaggu sida ay u arkeen gudaha soomaaliya haddaan horta ka bilaabo dee dadkeenna uma habaysnayn ama waxay u arkayeen hanti wadaagga waxay u arkayeen inay diin la-aan tahay waanabaad mooday fikradahooda kulley un inay sidaa u dhaweed mar haddii anagu aan sii durugnay aan idhi mataqaanaa waa hanti wadaagga cilmiga ku dhisan marka ma una fiicnayn gudaha jawaabtii dadweynuhu ama aada ugumayna faraxsanayn waana dareemi karnay runtii mataqaana kulley un raggu waa wada dareemi kareen mid un haddaan la isdiidsiinayn maxaa yeele ummadeena waa wada muslim nin kasoo da hadda anan dhaqamadeeda markaad eegto aada iyo aad aad ula yaabaysid laakiin haddana iyad ahaan waa dad muslimnimadu ay tahay waxba waran kartaa waa qabiilkoodaba inaanu qaadano waxyaaba kasoo horjeedo diintiis ay aaminsanaayeen wax aada iyo aada u qallafsan bay ahayd waana runtii kolley muuqatay markiiba haddaba haddii dhegaystayaal dadkii soomaaliyeed ee loogu dhawaaqay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan ay sidaas iyagu arkeen su-aasha kale la isweydiin karaa waxa ay tahay waddamadii dibadda ee muslimiinta iyaguna sidee ayay ugu muuqatay soomaalida hanti wadaagga cilmiga ku dhisan qaadatay aan mar kale idinku celiyo cusmaan maxamed jeelle oo isagu ahaa ninkii loo xil saaray inuu soo qanciyo waddamada carabta qaarkood waxaanu yidhi haddii dawladaha dibadda ama islaamka la yidhaah horta waxaana ninkii golaha sare ay u direen dawladaha carabta ah ayaga ayaa noo ood dhow dawladaha islaamka ah bal si uun loo qaboojiyo waxyaabihii ka yimid oo kasoo dhacay marka waxaan kugu sheegayaa run ahaan markaan waayo aragnimo kaaga warramo iyo goobjoog ahaan ma aanu fiicnayn marka laga reebo dalal ayaga u dhoodu hanti wadaagga horey u qaatay laakiin anan ku talax tegayn oo hanti wadaag bas uun madaxweyne xaafid asad madaxweynaha suuriya oo hore aan isu naqin markii aan u tegay oo u yidhi war islaan miyaad waalateen ma hanti wadaagii annagu aan la liidanay dadkeena saan uga dhaadhicin ayaad sii kordhisay haddana mid cilmi kasii dhigteen marka dadkii noogu horrey waayo aragnimo ahaan oo dalal islaama xukumayey oo madax ahaa sidaa ayay intii nasiixa ay noola yaabanaayeen kaasi waxa uu ahaa cismaan maxamed jeelle markii haddaba hanti wadaagga la qaatay ayaa isla markiiba waxaa la bilaabay in la koolkooliyo maxamed siyaad barre amaba magiciisa la dhiso sidii ka dhacaysay waddamadii kale ee hanti wadaagga ahaa sawirradiisii ayaa meel walba lagu wareejiyey isaga iyo nimankii aabbayaasha u ahaa mabda'aasi ee marx iyo lenan waxaana la tiriyey gabayo iyo heeso badan oo maxamed siyaad barre lagu ammaanay dhegaystayaal haddaba maxamed siyaad barre ammaantiisu ma koobnayn waxaa loo bixiyey magacyo badan oo ay ka mid ahaayeen aabbihii ummadda aabbihii garashada iyo guulwada siyaadba
askartii haddaba talada qabsatay waxay ururiyeen carruurtii agoon tahayd iyo kuwii iyaguna iska dabadyaalka ee aan haysanin cid taakulaysa waxaana la geeyey xeryo waxbarasho iyo taabaro lagu siiyo oo ay ku noolaadaan xagaagii sanadkii 1972kiina waxaa la abuuray ciidamadii la odhan jiray guuloodayaasha oo badankoodu ahayn dadaan wax shaqo ahaynin oo suuqa laga soo ururiyey markii haddaba la qaatay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan maamulkii dhaqaalaha ee dalka dowladda ayuu gacanta u galay dowladdii milatariga ahayd ama kacaanka ahaydna waxa ay qaramaysay shirkadihii gaar ahaan loo lahaa iyo wax soo saarkii dhinaca beeraha waraysi uu BBC da siiyey maxamed siyaad barre waqtiyadaasi oo lagu weydiiyey waxa dowladdiisu ay dadka baac mushtariga ugala wareegtay shirkadaha maxamed siyaad barre waxa uu ku jawaabay jaalle gabar baa walaalkeed naas ka qabtay waxay tiri naaska walaalkay qabtay hadba waa saan ka dhigta waxaan haatan anagu leenahay markaanu taa yeelaynay ummadda Soomaalida oo badan maslaxadeedan ula soconay marka hadee ninkii beecushariga ahaa waa hadba soo ka dhigta haddii uu taas u gartana waa nin fiican haddii uu keligay anoolaada inta kale ha dhimato oo soo gartana isagay jirtaa laakiin anagu dano nagama hayso waxsan ku leeyahay ninkii hadda xoolaha lahaana horay baan ula hadalno waxaanu niri u leexo xagga warshadaha oo annaguna aan kala shaqeyno oo dawladda nafteeda ha kala qayb gasho oo sheer ha yeelato ama qaar ha yeelato kuwii shaqaalaha ahaana dawladda tanba shaqaalaha leh dawladda nafteedaba iyaga leh shaqaalaha iskale iyo dhalinyarada yaa iskale dadka naga waaweynu bacdama ay yihiin dadkii caruurtaas ay sheegaya dhalay danbay annagana waajibkanaga way inaan caruurtii korino oo weyneyno oo iyaga mas'uulka u gudbino annagu meeshii haysanin oo keligana anaan xukumin barnaamijkii qaramaynta ahaa ee ay ku dhaqaaqday xukuumaddii milatariga ahayd ee maxamed siyaad barre waxaa fikradaheeda waxqabad ay ku fulin jirtay barnaamijkii la odhan jiray iskaa wuxu qabso hase ahaatee amuurta ugu qiimaha badnayd ee ciidamadii talada dalka qabsaday ay fuliyeen oo laga yaabo inuu ruux kastaana ka marag furo waxay ahayd qoritaankii farta Soomaaliga oo la qaatay xuruufta Laatiinka sanadkii 1972kii maxamed siyaad barre oo ka hadlayay in af Soomaaliga la guddoonsaday in la qoro korintii aan la hirgelinin waxa uu yiri gunnimo cilmiya ama tacliina wax afka hooyo aan ahayn oo naga bixin kara ma jiraan marka taas markaan garanayna cilmigii kale waa badan yahay waana ballaaran yahay wixii lagu baran karaa waa afka hooyo mid kale lagu baran karo taasa kaga bixin karta jahaalada ama ba adoonnimada cilmiga ka saari karta marka saadarteed afka hooyo ayaanu dhigaynaa waqtigii ku oran maayo barnaamijkeena iyo sadama dhigaynaa kumaliyi waxaan ku lahayn waa wax ka dhaxeeya gudiyalka ama dawladda ka dhaxeeya inay u fariistaan iyagu maalin hebel yiraahdaan oo gooyaan ma anigu kuma aan maalin hebel ku dhiimaayo laakiin waanu dhigaynaa kulligeennana walow aanan gooynin maalin fulaan waa isku ogolnahay wax kale oo Soomaaliya ay uga bixi karto aqoon darrada ama gumaysiga cilmiga ay uga bixi karto afka hooyaan ma jiro marka waa dhigaynaa kaasi waxa maxamed siyaad barre oo ka hadlayay qoritaanka afka Soomaaliga in ay ku talagaleen ay sameeyaan hadaba golihii sare ee kacaanku waxa uu ku dhaqaaqay inuu fuliyo sidii af Soomaaliga loo qori lahaa waxa markaasi la sameeyay gudidii ugu horeysay waxa kamid ahaa gudigaasi loo xilsaaray arrintaasi oo tiradooda ahayd 22 Cabdi Daahir Afay oo imika degan wadanka Australia Yusuf Garaad oo wareystay mar sanadkeenu ka soo gudubnay dhamaadkiisii booqasho uu ku yimi magaalada London ayaa waxa uu weydiiyay bal inuu ka warramo si kooban taariikhda af Soomaaliga cidii isku dayday in ay qoraan qaar kamid ah waxaan ku jawaabay Yusuf anigu intaan ka ogahay ama raggii aan soo wada shaqaynay far Soomaalidu muddo dheer bay soo qaadatay in la qoro rag badan baa isku dayay ilaahay naxariistii ha siiyo raalina ha ka ahaado Sheekh Yuusuf Kowneyn ayaa ugu horeeyay sida aan taariikhda ku maqlay ama ka sheeka qabo in af Soomaali waxa la yiraahdo bal horta uu qoraal galo ama cod yeesho ama wax lagu qabto waa ninka soo saaray alif la kordhabay alif la hoos dhabay alif la goday wuxuu isku dayay dadkii Soomaalida ah si uu quraankii u xafadsiiyo oo ay higaadii u dhigaan u yeersadaan oo iyagu gacantooda qoraalkii marka loo yeeriyo quraanka ay iyagu gacantooda ku dhigaan waxa ku xigay sida aan taariikhda ku hayo
cismaan yuusuf keenadiid nin la yidhaaho reer hobyo ah ayaa isna fartan cismaaniyada la yidhaahdo soo saaray. waa far soomaali xuruufteedu tahay oo shaqaladeedii iyo shibanayaasheediiba soomaali yihiin. fartaasuu isna nin gabayaabuu ahaa. waxaa ku kallifay isagana in uu gabayadiisii u samaysto wax uu meeluu ku xafito iyo qoraal uu ku xafido. waxaa ku xigay oo raggii iyaguna qaybta weyn ka qaatay naxariista allaha siiye muuse galaal ninka la yidhaahdo iyo professor andrewiski ninkii ingiriiska ahaaye isna ahaa yaa kontomaadkii iyo ka hor baan u malaynaya inay ahayd. iyo iyaguna far latiina. muuse wuxuuba igu yidhi marka hore carabi baan isku dayey inaan wax ku sameeyo, se yeeshee markii isukay qabsan weyday ayaan u leexday xaggan fartan scriptiga ama xuruuftan ta'da ingiriisiga inaan wax ku sameeyo. aniga ninkaasaa iska kaashanay inaanu xuruuf latiina aanu wax ku samayno. waxaa iyaguna kusoo xigay halkaas ninka layaha shiro jaamac. isna wuxuu ahaa nin fartaa latiinka ah wax ku qorqora oo raggii isna ku xigay buu ahaa. waxaa kaloo isna ku xigay professor ibraahim xaashi naxariista allaha siiye ninkaasoo isaguna fartan carabiga ah oo wax ku qori jiray oo iqtiraax macnaha ra'yigeeda soo jeediyey in fartan carabiga la qaato. waa fartii quraanka, waa fartii diinta ku soconaysay. alifkeena iyo afkeenana halka aan ku dhigabuu doodiisu isagana ahayd. waxaa jiray nin la yidhaaho cabdullaahi insaaniye oo isna farta latiinka ah isna soo jeediyay iqtiraaxeeda in wax lagu qoro. waxaa isna jiray xuseen sheekh kadare nin la yidhaaho isna oo far alifba'deedu soomaali taho isagu uu iqtiraaxeeda iyo ra'yigeeda lahaa yaa iyadana jiray. 8 farood ayaa tartankii markii guddiga laysu keenay farahay oo ahaa saldhigga waxyaalihii ay ka shaqaynayeen. farihii meesha lasoo dhigay saldhigga ahaaye laga doodaya tee la qaataa. 21 nin yaa marka hore yaa magacooda lasoo saaray. goorma bishii koowaad kowdeedii 1971 bay ahayd. waqtigaasna la magacaabay. cabdi haddaan meesha ka dhex galo guddiga soomaaliga la sameeyey 71 dabcan dhowr jeeroo dambe ayaa guddigii wax laga bedelay laakiin markaa u horreysay la magacaabay dadkii kugula jiray wax ma ka xasuutaa? haa rag badan baan ka xusuusnahay. horta ninka la yidhaaho doctor shariif saalax maxamed ninkaas wuxuu marka guddigana la magacaabay guddoomiyihii jaamacaddu ahaa. isagaana nalooga dhigay guddoomiye. halkaas raggii maalinkaas ayaantaa la magacaabay waxaa ka mid ahaa yaasiin cusmaan keenadiid, muuse galaal, anigana cabdi daahira, maxamed shirin ina shiragaab la yidhaaho, maxamed shirin la yidhaaho, axmed cali abokor, aw jaamac cumar ninka la yidhaahdo, cabdullaahi insaaniye, shiro jaamac, professor ibraahim xaashi, xirsi magan, xuseen sheekh kadare. 21 intoodii kale maskaxdeeda hadda way ka maqan tahay, qoraalkiina ima horyaallo. tallaabooyinkii golaha sare ee kacaanku ay ku dhaqaaqeen waxaa ka mid ahaa sidii ay u samaysan lahaayeen dad waxyaabaha ay wataan u hoggaansan. shaqaalihii sare ee dowladda iyo ardaydii jaamacadaha ka soo qalin jabisay iyo kuwii dugsiyada sare ka baxay ayaa iyagana lagu ururiyey xero milatarigu uu hore u lahaan jiray oo la yidhaa xalane, looguna magacdaray askari ku dhintay magaalada togwajaale dagaalkii ka dhacay sannadkii 1964 kaasoo dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya. askarigaasi xalane oo la dilay isaga oo badbaadinaya calanka Soomaalida markii ciidamada Itoobiya ay soo galeen magaalada togwajaale. ciidamadii NSS-ta ee sirdoonka gudaha ayaa iyagana la sameeyey oo ruux walba isha ku hayay. wixii dallacaad iyo casilaad ahna waxa ay ku fadhiyeen wixii wara ee ay hadba soo gudbiyaan. waxa xoogaystay in ciddii wax ka sheegta dowladda milatariga ah iyo barnaamijkeeda lagu sifeeyo afmiishaar. waxaana taasi ay dhalisay ciddii hadal cadiba in dalka ay dibadda uga baxdo oo shaqo ay ka raadsato.
taasoo iyaduna keentay in maskaxo aqoon badan lahaa oo dalka wax u tari lahaa ay waddanka dabaddiisa u baxeen hase yeeshee culayska dadku uu dareemay waxa ka horreeyey in golihii sare ee kacaanka lafahaantoodii ay iskhaarajiyeen markii bishii Julaay sanadkii 1972 laba jenaraal oo ka mid ahaa golaha sare ee kacaanka la dilay waxa ay ahaayeen jenaraal Maxamed Caynaashe oo madaxweyne ku-xigeen ahaa iyo jenaraal Salaad Gabayre oo dad badan oo golaha sare ee kacaanka ku dhawaa ay sheegeen inuu ahaa nin qayb weyn ku lahaa in militarigu talada dalka uu la wareego haddaba sanadihii 1973 iyo 75 kadib markii la qoray afka Soomaaliga waxa dawladii militariga ahayd ay bilowday ololayaal wax qorslaan iyo wax kharaslaan lagula dagaalamayo oo magaalooyinka iyo miyigaba laga fulinayo bishii Juulaay 1974 ayaa 30,000 oo ardaydii dugsiyada sare iyo macallimiintoodii waxa loo diray dhulka miyiga ee dadka ruur guraaga ay joogaan iyo beeraleyda si markaasi ay u soo baraan sida loo qoro loona akhriyo farta Soomaaliga waxa ardaydaasi la raaciyay shaqaale kale oo xagga caafimaadka xoolaha iyo dadkaba ah hase yeeshee olayaashaasi waxa ku soo beegmay abaarihii ugu xumaa ee ka dhaca taariikhda Soomaalida waddankaasi dawladii Soomaaliduna ma ay qarsanin dhibaatadaasi abaaraha sidii Itoobiya ay yeeshay oo kale haddaba ardaydii loo diray inay dadka soo baraan far Soomaalida ayaa waxa markiiba loo qaabeeyay inay isku dubaridaan xiriyo dadkii abaarahaasi ku tabaaloobay la isugu geeyay abaartaasi oo ka dhacday gobollada waqooyi ee Soomaaliya dad ay tiradoodu gaadhayso 200,000 oo qof oo reer guuraaya ayaa hawshaasi waxa ay suuro gelisay in lagu ururiyo xiriyahaasi tallaabadii ka dambaysay ururinta dadkii abaarta ku tabaaloobay waxay ahayd in loo raro dhulbeereedka koonfurta iyadoo lagu daadguraynayay diyaarado ruushku ay leeyihiin iyo gaadiid kale oo dhulka ah waxaana ka mid ahaa meelaha kumanaankaasi qof la dejiyey degmooyinka Kurtuwaarey Sablaale iyo Dujuuma waa tahay dhegeystayaal barnaamijka maanta inta ayaan ku joojinaynaa waa inoo kulankeena dambe oo ah axad soo socota